nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino dulmidiido dulmi doonaan aragne dulmidiido dulmi doonees ku noqon war saas maahan xalka diido xilka doonaan aragnaye xilka doonow xalka diid ha isku noqon war sidaa ma ahan madax doono madax diidaan aragne madax doono madax diid ha isku noqon waraysta sidaasi maahana waxay tahay musuq diido musuq doonaan aragne musuq diido musuq doon ha isku noqon aryaadhahaas maa inay dhegeysta dadka doonow dadkii laayaan aragne dadka doonow dadkii laysa isku noqon war saas maayinku ku dheelen sharci doonow sharci diidaan aragneye sharci doonow sharci diid ha isku noqon war saas ma ayn haysto waxay ahayd qarax diidow qarax daayaan aragne qarax diidow qarax days ha isku noqon war maanta waxa la wixii filim Soomaaliya ka jiri ayaad la xasaarteen ilaahay ay ka aqbalo warnimada waxaan maqli jiray warkii hore war soo dhaaf oo waran boodka kuma jiro aada saaqna wuxuu dhigi jiray galmudug waxa lagu yaqaanaa dooni mayno maanta warkaas waa beenooma xildhibaanadii galmudug ayagoo udbahoodii dhigahoodii wata ayay isxilqaan ka qayb qaateen waxayna yiraahdeen waxaan ka jawaabnay baaqi madaxweynaha Soomaaliya oo dhul dheer baa uga imaanay dhul dheer war maxaafa soo diray ama ka soo dhunteen war xaafis xabad joojin baa jirto irmaana shaqo joojina jirto kuma dhihin war nimayo xildhibaanada galmudug oo salqaan ka qayb qaatay macadaanay ka yimaadeen mise dhuusa mareeb war labadu waa galmuduge ha ku mashquulin meesha doona ka yimaadeen eedigi sagsaari ba guraasan wir lamadin la hesheehe wir aryaadaha waxa la yiri oo mihi la raabo meel kaloon la raabina ku reedatal mihi la raabo meel kaloon la raabina ku reedatal haye war waxa la yiri nin la rabaa horeen badana amba reeda waa ka roge waraayar muuse laxanka farxiifiski ma ku saartay war nimayo madaxweynaha Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga oo fadhiya baa la yiri wuxuuna la shiryaa baa la yiri taliyaasha ciidamada mardowna waxa loo malaynayaa duulaan culus inuu dhaco yaa ma bilowda mugi khilaaf dhaca madaxweynuhu gaashaandhigga aadi jiriye war 8 Febraayo soo dhow war nimayo anu 12 xal oo dhan gabay baan u soo jeeday minaad xalayo dhan qaan ku haysa xaatirihe waxaan iri 4 sano xilkii loo ballamay inuu dhamaanayo oo mucaarad lagu soo salliday ku tirtirinaya markay kala bargaartuu qofkiisii naxnaxayay kaambeynka xiga waa inuu rag u diyaarshaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay warnimada Axmed Madoobe waa tuu yiri dawladda xiriirkan u jarnay aga war magacyada madaxweynaha dhanba waad ka tagtay al-Sayyid al-Sheikh al-Islam warnaga daa warkaan naga dhaxgelina waxaan maqli jiray ilkaade soosi ka xiriiraan wasiirkii maaliyadda Jubbaland Cabdirashiid Jire Qalinle oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhamaanayn baa la arkay war xildhibaanadii xaafis salqaamayaba waa la arkay war waaraba xildhibaanadiisu musuqmaasuq ay ku eedeeyeen musuqmaasuq naftirkiisa musuqmaasuq ku eedayha aniguna war lafda gareen baa halka oo masuur u yimid wariya walba ko galdan lan irikii goori hoos ma kii jiidaw boowe Puntland madaxweyne Dani wasiiradii xulidoodii ku mashquulsan yahay dad muhiim ah ayuu raadinayaa war Cabduul kaas ma ku jira waxaan idin ilaanugu shacab ruux dambiile iska daba lugeeye qabiil ugu dagaala haddii uu daraa jiray maanta dawladnimo iyo qaran daaficiisaan u diyaar garowno danteennii ogaanay ka daadagaysaa nin walba maanta dantiisa helo qaran baan daafacaya ayuu ku marmarsiyooda dadka kalena qaran dumis buu ku eeday warka looma dhama horta dambiiluhu waa kaay war waxaan maqla talyaaniga in lagu xiray wiil Soomaali oo dadka tahriibi jiray waxaan lagu xukumay xabsi daa'im war odagaan waagu yaraa uu qadcaba kowdhaha warkiisuna qabad ma leh waryaada talyaaniga laftiisa in la soo xiray astaayla sababtoo ah meesha dhabo dadka u tahriiban waa asaga midda kale wiilku wixii uu tahriibiyo ka daba tahriibaya talyaaniga xaa ku dhaco sidaas wiilku ugu galay warnamiya war ana geeganka farahnay hadheegi mayla aray moota lama lugoodlay walaagii wadidan wal aruuriyo ciidan lan magaab yaa la eri war may an sabab ee madyan arina
yeega dadka la kadhamaayo haliyari ana reed mayliyaabsana too gararafley too kokooyohaye waana koohidohaye dadna madilne maylan haysada maskiinga maskila fulo lewa lama luwadle maskiin horta bada saaqo mu kastaxaad wala xaan dheegay u tira dhagaha halaga siibe warnimayo wixii laba lugood la hadii la xirayo aniguna laba lugood aan leeyahay ama la igu dara war inaba toor gararafka wadhaha erwu war xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu yiraahday dambiyada dhacaya waxa lagu geystay waxa ugu badan hubka ay haystaan ciidanka dawladda war xeer ilaaliyaha maqadu cabi maana kasta qaraxyada dhacay hubkan dadka lagu dilay ma ciidamada dawladda askale warnimayo aanu mar horaan iri hubka ciidamada dawladdu haystaan shacabka lagu difaaco haddaan lagu difaacayna yaan lagu dilin war shalay oo u dambaysay hooyo xanuunsan oo 8 carruur haysto istaal laga soo qaado mootobajaaj saaran isgoyska howlwadaaga askar dawladdu ku dishay war maanta ay ahayd markii wadajir ay bajaajla ku dilayeen ciidamada dawladda maadin hore eedan kurumaytan widay may ara jirtaan kasaase aniga ilmahayga geel ku marroogsan garyan dhabuur baa eber ka dhigtay aryaadhaha gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yiri dadka jidadka dhisahaya iyo burcad badeedu waa isku mid waraadha jisla dhisaa waday dambi tahay gudoomiyaha laftiisu meeqa waduu dhisay warnimada waxa la yiri lug adoo laga rudahayo bahalku soo ruugay oo taaka rogi waayo ruuxu ka dhacayo dhibaatada mid kula sii rabiyo inaad ku sii raagto roonaanna ku muujiyo roraya iman aree waxaas ma qaare waxa la yiri ma jaabeesa meel kaalay ka muulax leeyihiin wareer abeesa maahan afka u dhace masacagalay baa liiraa gorbu aan shabaab cirka looga soo dhaca leeyay waxaana kamid ah Amir Yaman ah wareer Yaman ayada dagaal ka socdaa haduu dagaal rabo ayada muu ka dirir muxuu naga soo doonay dab ku dhaca war Amirka bidaar buu leeyahay Yaman qof bidaar leh lagama ogol inuu ka dagaalamo aryaadaha anagu waa yaabanahay sujaacad arkayo in yatima ka soo baxan shalaysaaya xay tahay war Axmed Saciid oo foodaysta miyaad arkin wareer dadka bidaarta leh waa tii naafada lagu daray marka nimankaas xaquuq dastuuriya bay iska lumiyeen yaa tibay ka doorteen xay iska dhunsheen hadda sujaacadu koofida ma ku seexanaya abadan madajay gaawaya siifide wariyaha xildhibaanada madaxa dhalaalay meesha may tagaan wareedha markii geel loo heesaa goroyo heestaane lagu kala wada nimayow bixi mayna niyo ilaahay haydan arkeen